bismillaahi raxmaan raxiim dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeeni nasashada jimcaha aad ka dhegeysataan warqaad online.com maalin waliba jimcaha toddobaadkan waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa taariikhda Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki oo ka howlgala warbaahinta danan oo ku taala gudaha magaalada Muqdisho. Ismaaciil kusoo dhawo barnaamijka nasashada jimcaha ee warqaad online.com. وماسنتهاي عبد الله سليمان محمد بليل وانا كدوهاي برنامجكن quruxda badan ee daadihinayso shabakada wararka ee warqaad online aad u maasantahay Ismaaciil barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhdaada ayaa inoo saaran in aad dhegeystayaasha warqaad online.com aad u sharaxdo bal ka waran Ismaaciil nin caankee waayo ay dadka in badan waa ay ku dhageysteen meelo kala duwan waad ka hadashaa inkastoo hadda ka howlgasho idaacadda danan bal taariikhdaada kooban inooga warbixi ban bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u maasantahay mar kale run ahaantii markii la dhaho taariikh qof wariye ka hadal ama isagoo has ka hadlo waa taariikh inta badan oo fog oo aad u dheer maadaama uu yahay qof saxafi ah isla markaana bulshada u hadlo bulshadana ka yimid haddii aan ka hadlo taariikhdeeda oo kooban aniga saxaafadda waxaa ku soo biiray bilowgii 2012kii haatana taariikhdu waa la wada ogyahay waa 2015 waxaa u dhaxaysa adiga ku dhawaad 3 sano marka xilligaas ayaa saxaafadda soo galay waxaana ka soo howl bilaabay idaacadda xurmo ee magaalada Muqdisho oo ah idaacad ku hadasha arrimaha bulshada runaantii xilligaas waxaan ka ahaa reporter ka tirsan idaacadda oo qaabilsan arrimaha bulshada gaar ahaan idaacadda waxaan markaas u xil saarnaa wariyaha baarlamaanka ee idaacadda xurmo inkastoo shaqadeeda ay u badneed dhanka iyo arrimaha bulshada iyo barakacayaasha aan diiradda saari jiray kadib waxaan u shaqeynayay ilaa iyo 9 bilood oo bulshada Soomaaliyeed aan u shaqeynayay kadib waxaa ii suurta gashay inaan ku soo biiro idaacadda danan ee magaalada Muqdisho oo xilligaas ku taalay suuqa weyn ee Bakaaraha gaar ahaan agagaarka Nationka waxaan sii watay howsheeda oo ahayd reporternimada inkastoo idaacadda danan xilligaas aan u qaabilsanaa dhanka baarlamaanka oo aan howsheeda ka sii waday run ahaantii waayo kala duwan ayaa soo maray ilaa iyo haatan shaqadeeda waxa ay tahay reporternimo waa maasantahay Ismaaciil adiga kuwate waxa inoo soo sharaxday warbaahinadii aad ka soo kala shaqeeday iyo xilligii aad ku soo biirtay mihnada tan ee saxaafadda haddii aad dib u milicsano taariikhdaada waxbarasho halkee baad ugu baxday dugsigaaga sare aad ka soo qalin jabisay waa maasantahay baliil mar kale dhanka waxbarashada iskuulka hoose dhexe sare ee Cali Xuseen ayaa ka soo bilaabay oo shahaadada dugsiga hoose ku soo qaatay ilaa iyo dugsiga sare kadib waxaan u gudbay dhanka iyo bareefada inaan wax ka barto oo Ingiriiska iyo arrimahaas maadaama qofka saxafiga inta badan la rabo aqoon adag inuu yeesho in badan oo inta badan aqoontiisa ay saldhig u noqoto maadooyinka asaasiga sida Ingiriisiga iyo luqadaha kale waxaa ku biiray macadka barashada luqadda ee Ingiriiska ee Labaadir waxaa ii suurta gashay in aan ka qaato shahaado Ingiriis ah run ahaantii ilaahay mahadiis hadda waxaan ka howlgalaa sidaan ku sheegay idaacadda danan ee magaalada Muqdisho oo aan joogo muddo 2 sano waxaana ay shaqadeeda tahay reporternimo marka wariyaasha kale ee haatan ka howlgala magaalada Muqdisho runaantii 100% waxa ay yihiin wariyaal aan isfahanay intaan ku guda jiray hawshan reporternimada Ismaaciil sidoo kale waan ku dhageystaa maalin waliba reporternimadaada waxaa ku dheer barnaamij soo saaran waa tahay mararka qaarna waxaa u soo saartaa bulshadaada in aad bulshada aad u soo tabiso adigoona diiradda ku abaarayo in aad taageerayaashaada ay wax fiican ay ka helaan mar waliba taana ka waran aqoonta u leedahay soo saarista barnaamijyadan Cabdullaahi mar kale waa maadsantahay run ahaantii idaacadda reporter markaan ku dhahayo kaliya shaqadaas ma qaabilsani sidoo kale waxaa qaabilsanahay ama aan ahay nin soo saar barnaamijyo dhowr ah sida barnaamijka
caweyska oo haatan oo la hakiyey maadaama bisha barakeysan ee ramadaan lagu guda jiro sidoo kale waxaan soo saari jiray barnaamijka waxbarashada oo baxa waxaa qeybka barnaamijka waasan oo isna aan ka qeyb qaato marka soo saarista barnaamijyadaasi oo idil waxay u baahan yihiin juhdi iyo dadaal fara badan waxaa jirtay in sidoo kale ay dadka aad ugu barteen xubin la yiraahdo xubinta booliyoodka hindiga oo idaacadda aan ka soo saari jiray inkastoo waayihii dambe la hakiyey balse waxaa si toosa markaa maalmihii dambe aan usoo saarayay xubinta tartanka fanaaniinta soomaaliyeed inta badan waxaan sameeyaa 2 fanaan oo isku qalma isla markaana bulshadu ay aad u dhageystaan in markaasi aan diiradda u saaro bulshada si iyaguna ay uga hadlaan labadaasi fanaanka ay markaasi jecel yihiin ama heesihiisa ay dhageystaan marka dhegeystayaasha aan u bandhigno fikiro kala duwan ayay kasoo dhiibtaan marka tartan haddii markaasi ay galaanna tartanka labada fanaan mid unbuu guusha qaadaya marka inta badan waxaan diiradda saarnaa barnaamijyada aan sameynayno waxaan ka eegnaa dhanka xiisaha hadday yihiin fanaaniin isla tartami karo inta badan waxaa fiirnaa maadaama dadka ay yihiin dad iska jecel inay dhageystaan dadka cusub hadda soo koraya fanaaniintii dambe ee dib heesooda qurbaha lagu soo casriyey in badan marka waxaa isku dhufanaa fanaaniinta haatan soo baxay marmarna waxaa isku dhufanaa fanaaniinta horey ee waayo heesooda qaraamiga marka sidaas ayaan barnaamijka aan usoo saaraa ismaaciil ma jiraan muddadii aad saxaafadda ku guda jirtay oo ay dhan tahay in ka badan 3 sano waxyaabaha hal curisay aad kusoo biirisay saxaafadda haddii ay ahaan lahaayeen erayo mase barnaamijyo aad soo saarta aad talo iyo aad ku lahayd fikrad run ahaantii horta waa ay jiraan laakiin adiga ma dareemi kartid waxyaabaha aad soo saarto adiga dhegeystayaal ayaa leedahay marka qofka wariyahana marka uu hadlayo dad kale ayaa ku xiran marka adiga ma ogaan kartid waxyaabaha kusoo kordhisay saxaafadda inkastoo laakiin ay jiraan arrimo badan oo aan kusoo kordhiyey laakiinse taas waxaa ka warbixi kara dhegeystayaasheeda ma nooga sheegi kartaa hal iyo labo arrimahaas adi ismaaciil arrimahaasi haddii aan ku hormaro dhanka diyaarinta wararka waxaa jiraan erayo badan oo aan anigu leeyahay sida haddii aan tusaale usoo qaato tusaale weerara dhacay weerarkii inta badan waxaa ka fiiriyaa wariyaasha inta badan waxa ay u diyaariyaan inta la xaqiijiyay intaasaa ku dhimatay inta la xaqiijiyay intaasaa ku dhaawacantay marka anigoo khibradeeda iyo duulimaad fara badan anigoo sameynaya tusaale ahaan waxaan usoo qaataa afayeen u hadlay wasaaradda hebel oo qarax ka hadlay waxa uu sheegay maanta in intaas ay ku dhimatay weerarkii maanta ka dhacay meel hebel marka arrimo badan way jiraan laakiin hadda waxay u baahan yihiin in dib loo baaro ismaaciil saxaafadda maanta dalkeena ka jirto aad ay u adag tahay ka shaqaynteedii iyadoo ay jiraan dhibaatooyin fara badan maadaama saxafiyiintii ay ka dhex shaqaynayaan laba qole ishaysato la rabana nin kasto inuu sida wax u rabo aad u dhigto iyadoo inaad raacayso sharciga saxaafadda sida ay kugu amrayso marka ma jiraan tababaro aad heshay muddadii aad ku guda jirtay saxaafadda aqoontaada aad ku kordhinayso haddii ay noqon lahaayeen gudaha dalka mise dibaddiisa haddii jiraan hal iyo labo maxaa ka mid ah waa mahadsan tahay horta xaaladda hadda ka jirta waddanka nin walba siduu isku badbaadi lahaa isagay u taalaa marka horta waxaa fiican haddaad tahay saxafi haddana maanta waan u jeednaa in saxaafadda xaalad adag ay ku shaqeynayaan oo wadankii qolana ay markaasi ay leeyihiin weerara kula jirnaa dowladuna ay leedahay qoladaas weerar kula jirnaa marka qofka wariyaha waxaa laga rabaa in labadaasi dhinacba uu dhexdhexaad ka ahaado maadaama maalmahan ay magaalada muqdisho ama guud ahaan dalka ay saxaafadda si kale markaasi loola dhaqmayo oo dhibaatadooda iska adkaatay tan kale haddii aan usoo laabtay su-aashaada seminaaro badan waa ay jiraan oo ka qayb qaatay qaarkoodna wax badan aan ka faa'iiday waxaa igu dambeeyey seminaar oo aan ka qayb galay 3 May maalinta xorriyadda saxaafadda seminaarkaas run ahaantii waxaa bixinayeen macallimiin aad u khibrad badan oo ka socday dowladda Finland run ahaantii seminaarkaas waxa uu ahaa seminaar inta badan arrimo fara badan aan ka faa'iiday sida maanta qof wasaarad ka tirsan ama shakhsi tusaale ahaan waxa uu damacsan yahay inaan maanta ka soo saari karo oo ah ilaahay mahadiis maanta haddii aan ku fiirsho adiga saxafiya tahay
ujeedkaaga iyo hadafkaaga iyo mustaqbalka waxaa qaban doontana in macnaha tusaale yar aan ka bixi karo waa khibradii aan ka qaatay seminaarkii dhowaan aan ka qayb galay marka way jiraan seminaaro kale oo wax badan aan ka faa'iiday ismaaciil waraysigan uu kula yeelanayo website-ka warqadonline.com haddii aan ku weydiiyo su-aal oo shakhsiyan ah adiga kugu aadan ka waran arrimaha jaceylka sidee isku tihiin ma jiraan xaas aad leedahay maadaama aan taariikhdaada aan kaa wareysanayno meelo fara badan ay nala geli karto ka waran dhanka ay jaceylka xaqiiqdii dhanka jaceylka maamaha Soomaaliyeed ama hees ayaa jirtay oo oranaysa haddii aan jaceyl jirin adduunka ma joogeen marka maadaama aan nahay dad jaceyl lagu dhalay dad macnaha jaceyl wax ku dhali doono marka haddii aan iska hadlo horta waxba iska jirjiraan adiga hadda baliil ah ma dhigi kartid jaceyl ma haysto oo arrimo nolosha macnaha maanta qof ila wado ma jirto macnaha adiga ma dhigi kartid dadda laakiin waa iska jiraan inkastoo aysan badneen marka arrimahaasna sidaas aan ka leeyahay ismaaciil oo intii aad ka shaqeynaysay mihnadan saxaafadda dhibaatooyin oo kula soo gudboonaada ma jiraan adiga shakhsiyan ahaan ka soo weerar dhanka saxaafadda ku guda jirkeeda runaantii horta maadadan saxaafadda markaad baranayso markaasa ku talagalay horta dhibaato walba inay ka soo wajahayso aniga hadda waxaa xasuustaa inta aan saxaafadda ku soo beerin in dhibaato iga soo wajahday maalin maalmaha ka mid ah anigoo baranaya saxaafadda aniga iyo wariyaal caan ah oo hadda magaalada ka howlgala in xabsiga noola taxaabay anagoo waraysi ka qaadayno kaam ka mid ah kaamyada ku yaala magaalada Muqdisho dadka ku nool yaa xabsiga inuu guray ciidamo ka tirsan dawladda oo sheegay in macnaha ay naga shakiyaan waxaa ku jirnay xabsiga ilaa iyo 3 saacadood oo xiriir ah hadda oo federaalka miyamso dawladda ku meelgaarka dawladdii hore ee ku meelgaarka uu hogaaminayay madaxweynihii dhacay mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed marka waxaa suurta gashay in xabsigaasi aan ka soo baxno ilaahay mahadiis marka waa ay jireen dhibaatooyin kale oo ii xigay markaas saxaafadda ku soo biiray sida hadda ka hor in lagu jir dilay airportka aadan Cabdulle Cusmaan Adaacad xilli aan shaqo halkaasi u joogay run ahaantii iska badan yihiin dhibaatooyinka marka saxaafadda Soomaaliyeedna run ahaantii arrimahan marka ay ku biirayaan waxay markaasi dhigta ku hayaan ama ay la socdaanba in dhibaato ay ka soo wajihi karto gabagabadii Ismaaciil warqadonline.com maxaad dhihi lahayd maadaama uu hadda maanta taariikhdaada ka wareysanayo dad fara badan ay dhageysanayaan webka caan ka baxay in ka badan maalintii 35,000 oo qof in ka badan ay daalacato maxaad dhihi lahayd website-ka warqadonline anigoo soo gabagabeynaya wareysigan Cabdullaahi Suleymaan Maxamed Baliil aad ila yeelatay warqadonline run ahaantii waa website caan ah aniga xataa qudheeda aan daalacdo maalintii mararkii magaalada ay ga jiiftaan iska update gareeyo marka warqadonline waa website in badan caan baxay oo ku caan baxay dhanka iyo wararka iyo sameynta barnaamijyada iyo arrimaha bulshada marka waxaa leeyahay madaxda iyo shaqaalaha website-kan caan baxay warqadonline hawshan aad u haysaan bulshada Soomaaliyeed halkiina ka sii wada Ismaaciil su'aal aan hilmaam haddii aan ku weydiiyo dhanka ciyaaraha yaa taageertaa horyaalada ka jira dalkeena Soomaaliya iyo kuwa ciyaaraha arrimaha dibadda yaa ka taageerta aniga horta ciyaar ma taageero oo kooxdii xilligaas badinaysa taageersanay aad u maastaa Ismaaciil intaa ayaan ku soo afmeerayaa dhageystayaal barnaamijkii halkan ka dhageysanayseen halkan waxaan idin soo jeedinayay barnaamijka anigoo ah Cabdullaahi Suleymaan Maxamed waxa igala qayb qaatay mahadiyaha ka gaartay Ismaaciil Axmed Maxamed oo taariikhdiisa inoo falanqeynayay